asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid a kabtanka xulka qaranka Argentina Leo Messi oo sheegay in hoos u dhac uu ku yimid qaab ciyaareedkiisa kooxda kubadda cagta Barcelona oo shaacisay goorta ay soo bandhigi doonto Antonio Griezmann Juventus oo heshiis rasmi ah la gaartay Andre Rabiot kooxda kubadda cagta Arsenal oo baacsanaysa Wilfried Zaha Manchester United oo bedelka Romelu Lukaku ka heshay kooxda Arsenal qodobadaasi iyo waliba kulamadii Copa America koobka qaramada qaaradda Afrika iyo koobka adduunka gabdhaha natiijooyinkii kulamadaasi xalay dhacay iyo kuwa la ciyaari doono ayaa warkeena ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan balse haddaad ku cusub tihiin channelkan subscribe inoo saara aynu ku horeyno kabtanka xulka qaranka Argentina Leo Messi ayaa waxa uu sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid qaab ciyaareedkiisa wanaagsanaa ee kooxda kubadda cagta Barcelona uu ku soo bandhigi jiray Leo oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in bandhiga kubaddiisu hoos u dhac ku timid tan iyo intii markaasi koobka qaramada qaaradda Amerika ama Copa America oo markaa ka soconaya gudaha dalkaasi Brazil isagoo ciyaarayay Messi ayaa hal gool kaliya koobkan ka dhaliyay iyadoo ahayd penalty ama rigore Leo ayaa inta hadalkiisa waxa uu ku daray in uu markaas si weyn u dhaleeceynayo garoomada ku yaala gudaha dalkaasi Brazil ee Copa America ka soconaya isagoo ku tilmaamay kuwa markaasi qaabka ay u diyaarsan yihiin ay yihiin kuwa aan wanaagsanayn oo sida garoomada qaaradda Europe oo kale aysan ahayn Messi ayaa wuxuu intaasi ku daray in uu markaa dib u soo nooleen doono qaab ciyaareedkiisa inta lagu guda jiro Copa America Leo ayaa waxa uu ka hadlay semifinalka oo ay isku aadeen xulka qaranka Argentina iyo Brazil ayaa waxa uu ku tilmaamay in kulankaasi uu yahay kulan weyn oo markaa labada xulba ay yihiin xulkii inta badan loo saadaalinay waxaanu rajo ballaaran ka qabaa yiri in xulka qaranka Argentina markaa ay soo bixi doonaan oo isagu markaa hogaaminayo kooxda kubadda cagta Barcelona waxay sheegtay in goordhow ay soo bandhigi doonto ciyaaryahankooda ee cusub Antonio Griezmann kaasi oo kooxda kubadda cagta Barcelona heshiis 5 sano ah u saxiixay kana soo wareegay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Barcelona ayaa waxay sheegtay sida markaasi Daily Mail ay daabacday in Griezmann la soo bandhigi doono isbuucan gudihiisa inta maalinimada Jimcada soo socota la gaarin Barcelona ayaa waxay ku dadaalaysaa sidii markaasi qaab ciyaareedka kooxdeeda ay dib u soo nooleen leed iyadoo markaa raadinayso in UEFA Champions League muddada ay ka maqan tahay ay ku guuleysto sidoo kale Barcelona ayaa waxa ay raadinaysaa inay dib u soo celiso ciyaaryahankoodii hore ee Neymar Jr haddaba kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxa la sheegayaa in Antonio Griezmann 5 sano oo saxiix ah markaasi ay kala gaartay ciyaaryahanka cusub ee lagu magacaabo Antonio Griezmann dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Juventus oo in dhawaala aad loo la xiriirinayay ciyaaryahanka reer Faransa Andre Rabiot ayaa waxaa la sheegayaa in heshiiskooda uu dhacay oo markaas si rasmi ah kooxda kubadda cagta Juventus uga mid yahay ciyaaryahanka Rabiot inkastoo ilaa imika kooxda aysan soo bandhigin waxaa la sheegayay in ciyaaryahankan markaa season walba ama xilli ciyaareed walba kooxda u ciyaaro uu qaadan doono ama jeebka ku shuban doono lacag gaaraysa 7 milyan oo markaa doolarka Mareykanka waxa uu u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Serie A dalka Talyaaniga ka dhisan Juventus 5 sano oo markaasi heshiisa waliba kooxda Juventus ayaa faa'iido weyn ku qabta ciyaaryahankan oo qadka dhexe aad ugu wanaagsan oo si free ah ay ku soo qaadatay kooxda kubadda cagta Chelsea waxay si rasmi ah u shaacisay in macalinka kooxda kubadda cagta Chelsea uu yahay Frank Lampard macalinka cusub ee kooxda Chelsea ay qaadatay Frank Lampard ayaa wuxuu yahay ninka ugu goolasha badan ee kooxda Chelsea soo maray una ciyaari jiray xulka qaranka Ingiriiska waxaa leeyahay jimcaha soo socda ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa macalinkan cusub ee kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard waxaana wax ka qortay The Sun maanta oo Sabti ah Arsenal waxay aad u doonaysaa ciyaaryahanka xulka qaranka England iyo kooxda kubadda cagta Crystal Palace Wilfried Zaha ninka la yiraahdo Wilfried Zaha
oo ka mid ah ciyaartooyda waqtidii ugu dambeysay sida weyn markaasi u muujinayay waxqabadkooda ayaa waxa uu da ahaan uu jira 26 sano 80 milyan ayaa kooxda kubadda cagta Crystal Palace ay ku doonaysaa. Daily Mirror ayaa saaka waxay ka qortay in ciyaaryahan Wolver uu doonayo laftigiisa inuu ka hayaamo kooxda kubadda cagta Crystal Palace isagoo doonaya in Arsenal laga iibiyo. Arsenal waxay iyaduna ay tahay xilli ciyaareedkan gaar ahaan suuqan intuu furan yahay ciyaaryahanka kaliya ee markaasi ay aad u doonayso waa Wolver Saha. la arki doona marka waxay ku dhamaan doonto arrintan. kooxda Manchester United-na waxa ay qarka u saaran tahay inay la wareegto ciyaaryahanka lagu magacaabo Aubameyang oo Arsenal weerarka uga ciyaara. ciyaaryahankan oo 30 sano jirka ayaa waxa laga yaabaa ayaa la yiri in wadadii Robin van Persie maray oo koobkii 20aad ee Premier League kula guuleysay kooxda Manchester oo kale isaguna waxqabadkiisa Old Trafford u soo miinguuriyo. laakiin waxa sidoo kale dadka sportiga falanqeeya ay leeyihiin Aubameyang hadii uu Old Trafford aado waxa macquul la qaabkii Alexis Sanchez oo kale inuu noqdo oo kubadda ay ka mudoobato leeyahay. laakiin waxa Manchester United ay sheegaysaa ama ay doonaysaa ciyaaryahankan 30 jirka ah in marka ay soo qaadato oo marka ay la soo wareegto waana dooqa Ole Gunnar Solskjaer oo Manchester United hogaamiya. dhinaca kale waxaan markan idin dul maraynaa natiijooyinkii ee Copa America iyo koobka gabdhaha ee adduunka ee soconaya iyo koobka qaramada qaaradda Afrika. Copa America kulamadii dhacay waxaa ka mid ahaa xulka qaranka ee Venezuela iyo Argentina 2-1 ay Argentina ku adkaatay. sidoo kale xulka qaranka Chile iyo xulka qaranka Colombia waxaa 5-4 rigoryaal ku adkaaday Chile. sidoo kale Brazil iyo Argentina ayaa is arki doona ayaa leeyahay semifinalka isku aaday. sidoo kale waxa wada ciyaari doona semifinalka Uruguay iyo Peru. gabdhaha waxaa markaasi koobka adduunka dalka Faransiiska ka soconaya ay markaasi u dhaceen kulamo dhowr waxaana ahaa kulankii xalay Mareykanka iyo Faransiiska ayaa laga adkaaday 2-1. waxa ay la ciyaari doona kulamo dhowr Talyaaniga iyo Netherlands ayaa sarki doona. Germany iyo Sweden way wada balansan yihiin. dhinaca qaramada qaaradda Afrika waxa wada ciyaari doona Mauritania, Angola, Cameroon, Ghana, Benin iyo Guinea Bissau.